waxaa guud ahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland saaka si rasmi ah uga bilaabmay imtixaanka shaqo qaran magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa saaka si rasmi ah uga imtixaanka u galay 1028 arday waxaana soo gurmaray agaasimaha guud ee hay'adda shaqo qaran gudoomiyaha imtixaanaadka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliska taliyaha ku-xigeenka ciidamada asluubta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer isuduwaha wasaaradda waxbarashada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer Ibrahim Dagaale iyagoo amuurtaasi ka hadlayna waxaa ka mid ah hadaladoodii sida tan dufcadii afraad waxaa imtixaanaadka ka qayb qaadanaya 1028 arday guud ahaan gobolka Togdheer waxaana lagu gelayaa 4 goobood guud ahaanna si amniga imtixaanaadka nooga wada bilaabmay ka qayb gali karaan difaaca dalka mahadaas waxay u sugnaatay ilaahay waxa ku amaanan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay inaanu kala qayb galno ama aanu kala qayb galno madaxda halkan maraysa furista imtixaanka shaqo qaran oo runtii barnaamijkaas oo lagu najaxay qaranka in markaad eegto dhammaanna aduu gobolada badidooda ilaa 8 gobol aan idhaahdo ay maanta u fadhiisanayaan ardaydii shaqo qaran bishii saddexaad 2022 inaan daha furno imtixaankii shaqo qaran dafcaddii afraad oo ka kooban 1028 arday ayaa saaka u fariisanaya waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii mashruucani uu ka soo maaxday maskaxdiisa ilaahay mahadii saaka oo 10 bisha 10 ayaan dah furaynaa waxaan rajaynayaa guul ayaan arday u rajaynayaa insha Allah taala gobolka Togdheer guud ahaan sida gudoomiyuhu sheegay 4 goobood ayaa lagu gelayaa waana 1028 arday ayaa u fariistay halka laga rabay 70 arday gobolkeenu oo helay marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa si nadiif ah oo aqoon ku dhaahan tahay sidii reer Togdheer iyo reer Burco lagu yaqaanay in insha Allah taala ay u gudan doonaan ardada u fariistay imtixaanka waxaan markaa runtii leeyahay waxaan qaranka ku dhiiri gelinaynaa in barnaamijkaasi aw sidaa uu sii socdo runtii oo aan laga caajisin ama aan laga niyadjabin waan ognahay kharashaad fara badan baa ku baxa laakiin waxa ka badan faa'iidooyinka kale uu inoo leeyahay ka badan waliba imika tirooyinku waxa waa dhaqaalahayna xakameynaya tirada ardayda mar walba ay la qaadanaya inta ay ka badanahay tirooyinka imika la sheegayo marka malaha hebel baa hebel wadaayo heblaaya wadaayo waxa soo dhan midna ma jiro marka waxaan leenahay inay waxaan ku ardaydana ku waaninaya ama aan kula talinayaa runtii arday waaweyn weeyay imika ardayda laba u qaybsanto waa ardaydii waaweyneyd nimankan waa ardaydii jaamacadaha dhameysatay marka lagama filayo waxyaalaha qaar runtii imikan waxa soo bixi doonta intii calaf ku leh sida loo kala sareeyo weey baa loo eegayaa waxa markiska maadooyinka la galay kolka totalka average-ka ardayga sida loo kala sareeyaa loo eegayaa gobol walbana wuxuu leeyahay wax loo runtii qoondeeyay halkan aan maanta nimid waa xaruntii gobolka Togdheer waa Burco waxaan u nimid inaanu ka qayb qaadano kormeerka imtixaankan saaka loo fadhiistay dhammaan gobolada dalkana imtixaankaas saaka uu ka wada furmay waxa uu tartamaya difacdan afraad 6,028 xubnood oo ay intii shuruudaha buuxisay in kale oo aan shuruudahii buuxin oo systemku reebay baa jira oo la kunay dheerada muhiimaddu halkay ku jirtaa waxa weeyaan maaha tirada loo tartamayo waa cadaaladda muhiima kolba wixii la hayo hadii la wadaago oo dadku cadaalad u helaan oo u tartamaan taasa muhiima tiradana waxay xadidayay hadba dhaqaalaheenu halka uu marayo sanadkii ugu horeeyay oo ahaa 2019 waxaan ku bilaabnay 1500 nasiib daro wakii adduunyada uu afeeyay xanuunkii COVID-19 ku dhaqaalihi adduunyada baa hoos u dhacay inaguna aynu ka mid nahay sanadkii labaad kumbaan ku soo celinay hadana xanuunkii uu bixi waayay aakhirkii imika 500 sanadkii hore sanadkan baa 500 waa Saciid Cali Cusmaan Xalays telefishinka caalamiga ee gobonimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer